أصحابي aad baan idin salaamaya meel kasta aad ku sugantihiin waxaan maanta idin sharxi doonaa barnaamij gaar ah oo WhatsApp-ka u khaas ah WhatsApp-ka ayaa waxaan ku sharxi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo 4 qodob ilaa 3 qodob oo muhiim ah oo qof kastaba ku habboon inuu barto su-aashu waa halkay taallay sidee ayaan isku qarin karaa WhatsApp aniga online ah sidee ayaan sawirkayga u qarin karaa sideen waxyaabaha ii gaarka aan u qarin karaa waa barnaamijkeena maanta أنا بدي أقول له واتساب سي أنا وصي شرحنا برنامج كنا كاركا واحد بدي أقول له برتاي فلان آخر كنت المامسو سي أنا فروس عن برنامج كنا ده بتسين تيجي ساعة كدوران دون تاع فلان ليه ده كنت المامسو أنت أمر كان دمنا أكونت نقول لنا بيج كنا إنه كاركا وحيابا بدنا إنه يلان بتبريف بس بين كسر دوران دون سي أنا وصي كده كله مهمة جال جاي تعلي تبتأفر تنقل باكو صوب حلات تسين بروفايل فوتو about status last scene haddii aan macinano waxa way waqti ugu dambeysay lagu arko ama inaad offline kusoo gasho ama inaad online kusoo gasho last scene nobody baa kamid qofna ima arki karaan anigoo soo markaan soo galo adiguna aday ku taala wixii aad loo sheego ka dhiganayso ifriyoon inaad ka dhigto asxaabtaada inaad wada aragto iyo haddii aad doonayso inaad keliya ay ku gaaraato waqtigaad soo gasho profile photo-na waxaad ka dhigan kartaa only me ama nobody qofna kuma arki karo sawirkaaga sawir kastoo soo dhigato keliga unbaa arki doona haddii ilaahay raalli ka noqdo aboodna waad inta ku xigta inta ugu muhiimsan waxa weeye last scene afarta qodob kulli waad fahmi doontaa haddii ilaahay raalli ka noqdo haddaad sii fiirsato asxaabtayda qaaliga haddii waa casharkan uga cajibiya fadlan adigoo raalliya subscribe like comment iyo wixii aad wado dhiirigelintu waa muhiim wax kasta oo adduunkan gorgorkiisa yaalla dhiirigelin ayaa ugu muhiimsan aad baan idin salaamay meel kasta ku sugantiin casharkani waa cashar aad ugu muhiim haddii aad WhatsApp isticmaasho nabadee aad baan idin salaamay